kalsoonidaas sidee waa والله كلسوني بقول كي بقول inay ku sheegayso لا boqolkiiba boqol يس Wait a minute. السلام عليكم حنود أذنكم يجي خطأ جعلنا أنا مثلا بنيسو هاي سبب مركب وقت بلا معناها أنا كنت أنا إلي إيمان أنا ما فهمت سبب وقت ما حيد من المسير كايا خطأني أنا عارف asalaamu calaykum wacan saaxiibada sharafta leh maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago ama aan fikirkayga ka dhiibto barnaamij ka mid ah barnaamijyada ay soomaalida ama dhallinyarada soomaalida aadka uga daawadaan bartan youtube-ka barnaamijkan ayaa waxaa soo gudbiya youtuber soomaaliyeed oo loogu magacaabo ridwaan barnaamijkan ayaa waxaa lagu tijaabiyaa lamaanaha ama dadka wada sheekaysanaya ee xiriirka leh inay daacad isku yihiin iyo in kale saaxiibyaal barnaamijkan run ahaantiisa iyo inuu run yahay iyo weliba inuu yahay riwaayad iyo wax la mid ah bal fikirkayga intaanan ka dhiiban ayaa marka hore bal barnaamijkan waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qof ka mid ah dadkii tijaabinayay jaceylkooda maxaa la yidhahdaa islamarkaana wixii uu kala kulmay kadibna waxaan bal fikirkayga ka dhiiban doonaa barnaamijkan sidaan u arko ma xaqiiqa jirtaa mise waa maxaa la yidhahdaa riwaayad iyo wax la samaynayo bal marka hore aan isla daawano wiilkan soomaaliyeed ee barnaamijkan ka soo qayb galay kalsoonidaas sidee waa والله كلسوني بقول كي بقول inay ku sheegayso لا boqolkiiba boqol يس saaxiibyaal ma rabo inaan waraysiga oo dhan halkan aan ku soo qaato keliya waxaan rabaa waxyaabaha ugu muhiimsan inaan ka soo qaato wiilkan dhallinyarada ah ee aad arkaysaan waxa u yimid qof inuu tijaabiyo uu xiriir la leeyahay islamarkaana runtii waxa uu aaminsanaa ama boqolkiiba boqol ku kalsoonaa qofkaas inay sheegi doonto in asaga uu yahay qofka ay xiriirka la leedahay balse gabadhii markii la wacay ee la weydiiyey qofka ay xiriirka la leedahay jawaabteedu waxa ay noqotay sidan السلام عليكم حنود أذنكم يجي خطأ جعلنا أنا مثلا بنيسو هاي سبب مركب وقت بلا معناها أنا كنت أنا إلي إيمان أنا ما فهمت سبب وقت ما حيد من المسير كايا خطأني أنا عارف saaxiibyaal sidaad maqlaysaanba wiilkan yar runtii arrin ayaa ku dhacday uu aad uga calool xumaaday runtii dadkii daawanayana ay ka xumaadeen balse waxaa la weydiiyey su-aal kaloo ahayd sidee is leedahay ama rajadaada ka waran hadda maxaa la yidhahdaa markaasuu wuxuu ku jawaabay sida tan maxaa kala tagaysaa meesha marka يا التي waxaa kala tagi lahaa inay soo noqonayso weli rajayna inay soo noqon doonto rajayna in ay ku soo noqoto qof kale sababtoo qof kale ma jeclaan inkastoo inkirayso dhib male saaxiibyaal sidaad maqlaysaanba wiilkan dhallinyarada ah isaga oo intaas oo jab ah ay ku dhacday ayaa haddana weli waxa uu leeyahay rajo ayaan ka qabaa inay u soo laabato sababtoo ah qof kale oo aan jecelahay ma jirto runtii wiilkan marka laga reebo barnaamijkan intiisa badan sidan oo kale ayay dadka ama dhallinyarada ku dhacdaa oo runtii gabdhaha iyo wiilasha istijaabinaya runtii waxaa u soo baxaa jawaabo runtii aysan ku fikirin ama aysan maxaa la yidhahdaa sugayn intaas marka uga soo gudbo wiilkan dhallinyarada ah runtii barnaamijkan aniga ahaan markaan xaqiiqada ka hadlo markii hore waxaan u haystay inuu ahaa wax iska mala awaal iyo maxaa la yidhahdaa laga rabo uun baashaal iyo wax la mid ah islamarkaana la jiilayo oo rag iyo dumarka meesha imaanaya ay yihiin rag maxaa la yidhahdaa barnaamijkan riwaayad ahaan uga qayb qaadanayo balse maalmaha ka mid a barnaamijkan markuu ku yimid yar aan saaxiibanahay islamarkaana qof xiriir ee la leeyahay oo maxaa la yidhahdaa waddan kala joogta ee soo tijaabisay ayaa runtii barnaamijkan waxaan ka aaminay inuu yahay mid xaqiiqa ah islamarkaana dadka si sax ay u yimaadaan si sax ana loogu tijaabiyo saaxiibyaal aniga ahaan runtii xaqiiqada markaan ka hadlo waxaan ka mid ahay dadka ku xiran barnaamijkan islamarkaana barnaamijyadan daawado runtii aniga ahaan kuma fikirin weli inaan wax tijaabiyo runtii uma malaynayan inaan wax tijaabin doono laakiin dadka dhallinyarada ah xiriir kale islamarkaana mugdiga iyo shakiga uu ku jiro runtii barnaamijkan aad ayuu u anfacayaa waa ina ka qayb qaadan karaan walaalkan barnaamijkan iyo fikraddan keensadana runtii aad ayaan ugu mahad celinayna waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan